dalkan dagaal ku jira deegaanadan dagaal looga jiraa waxaan u baahannahay wax allaale waxaan heli karno inaan ku bixino sidii dagaalkan nimankan la isaga sii bixi lahaa. odayaasha dhaqanku waxa ay qayb lixaad leh ka qaataan nabadda iyo horumarinta bulshada waana garyaqaano iyo udoodayaal dadka dulman iyo kuwa wax dulminaya intaba. xildhibaan yaasiin cabdullaahi maxamuud yaasiin fari taliye ku-xigeenka lugta ciidamada xoogga dalka mas-uuliyiinta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa halkan kulan kula yeeshay odayaasha dhaqanka qaybahooda kala duwan ee ku sugan degmada ceeldheer iyo deegaanada hoostaga. halkan odayaasha dhaqanku waxa ay yimideen inay la kulmaan xildhibaanka taliyaha lugta iyo maamulka degmada ceeldheer waxaa laga dhigaystay tabashooyin ay qabaan waxaa sidoo kale ay soo bandhigeen sida loo xallin karo tabashooyinkaas. xildhibaan yaasiin cabdullaahi maxamuud yaasiin fari oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya isla markaana laga soo doorto degmada ceeldheer ayaa odayaasha dhaqanka ku booriyay dagaalka nabadeynta iyo horumarinta bulshada ay qayb lixaad leh ka qaadanayaan. waxaa sidoo kale xildhibaanku uu sheegay in tabashooyinka ay qabaan loo xalli doono sida iyagu ay doonayaan. walaalaha maanta iskale marka xiga waxaan rabaa inuu mahadnaqo odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada iyo jananka ciidamada oo maantay goobjoog u ah arrin yar oo ka dhacday deegaanada isku xira ceeldheer iyo xardheere. waxaan rabaa marka inaan u mahadnaqo dhammaan odayaashii dhaqanka iyo cid allaale ciddii qayb ka qaadatay arrintaas in habeenadii lasoo dhaafan aan laga hoyan lagana hirgelin. dadkii qaraabada ahaa oo ehelka ahaa iyo maamulkii gacanta siiyey ee ku guuleystay in haddii la keedmaayo wixii dhacdadii in la qabto oo wax laga qabto waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin. intaa kadib waxaan rabaa ayagan inaan ka dalbado oon idhaahdo qaraabadii kale ee ehelka ahayd oo wax gaareenna ayaguna inaan ilaa hadda wax kale xaggooda aysan ka dhicin oo ayaguna ku mahadsan yihiin. waxaan kaloo rajaynayaa inay iyaguna qanci doonaan maadaama dadaal badan la bixiyey ninkiina gacanta lagu hayo. waxaan rajaynayaa iyaguna inay siina degi doonaan xaalna qaado doonaan aadaan rajaynayaa. intaa kadib waxaan rabaa inaan la hadlo guud ahaan dadka deegaankan degan. waxaan rabaa inaan u sheego waxaa jira waxaan laga gelin gorgortan waa nolosha dadka iyo wada deganaashada lagama geli karo gorgortan. dalkan dagaal ku jira deegaanadan dagaal looga jiraa waxaan u baahannahay wax allaale waxaan heli karno inaan ku bixino sidii dagaalkan nimankan la isaga sii bixi lahaa. waxaan rabnaa marka inaan dhiigga dadka iyo maalka dadka inaan laga gorgortamin oo haddii la keedmaayo waxa oo laga gorgortaminaysa qayb ka noqon ayaan rajaynayaa. waxaan kaloo rabaa inaan dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada qalabka sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan uga mahadnaqo inay halgankii iyo dagaalkii argixisada ay ku jireen inay ku darsadaan inay kaalmeeyaan oo gacan siiyaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaankaba inay gacan siiyaan dadka ehelka oo qaraabada ehelka ay wax kala gaareen inay ku baxaan oo ay waqti geliyaan iyagana aad ugu mahadsan yihiin. intaa kadib waxaan rabaa inaan guud ahaan dadkeena u sheego annagu deegaanadan iyo dadkan waxa aan jecelna waxaa waaye inay nabad ay ku wada noolaadaan nabad inay ku wada jiraan dhiigga dadka iyo haddii la keedmaayo nolosha dadkuna inay qiimo yeelataan rabnaa in la qiimo tiro ma rabno. dadkaanuna waa dadaaleen oo aada u dadaasheen. qaraabadii kalena waxaan rajaynayaa inay haddii arkaan juhdiga iyo dadaalka bixinaysaan inay xal u noqon doontaba oo xalkii inay soo dedeji doonto. intaa kadib waxaan rabnaa ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka xildhibaan ahaan anoo xildhibaankiia waxaanu ballan qaadaynaa in dadku siday rabaan arrintan inaan annagana aan diyaar u nahay inaan sida iyagu ay rabaan inaan wax ula xallino. haddii ay rabaan in haddii la keedmaayo dowladnimo lagu xalliyo inaan diyaar u nahay. haddii ay rabaan in qaraabanimo lagu xalliyo inaan diyaar u nahay. annaguna inaan hil iyo hoo mar walba inaan la garab taaganahay. maxamed cabdullaahi cumar warbaahinta qaranka ceeldheer galgaduud.